deeqdan raashinka oo maanta loo qeybiyay in ka badan 5,000 oo qoys oo kamid dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa waxa isugu jirtay bur iyo bariis, sokor iyo saliid iyo baasto. waxaana deeqdan raashinka u qeybiyay qoysaska ka barakacay fatahaada guddiga gurmadka ganacsatada magaalada Beledweyne. waxaana lacagtan lagu qeybinaya deeqda raashinka soo dhiibay shirkadaha isgaarsiinta Dahabshiil iyo Hormuud iyo rugta ganacsiga. guddiga gurmadka ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiya deeqda ay gaarsiiyeen maanta iyo maalmihii la soo dhaafay. maanta oo ah 7 bisha 11aad 2019 waxaan halkan u taaganahay qaybintii raashinkii ay soo dhiibeen ganacsatada gobolka Banaadir iyo shirkadaha Dahabshiil iyo Hormuud oo lacag ku deeqay. Hormuud 200,000, Dahabshiilna 150,000, 600,000 ay noo sheegeen ganacsatada gobolka Banaadir sida ay noo soo gudbiyeen. wajigii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad ba waan bixinay ayadoo magaalada geeseeda kulli laga bixiyay iyo gudaheedaba kan uu yahay kii lixaad. goobtaan aad arkaysaan maanta waxaan ka bixinaynaa 3,700 oo qoys. dhinaca magaalada galbeedkana waxaan ka bixinay Howlwadaag 1,300 oo qoys. isku darkoodu waa 5,000 oo qoys. guud ahaan markii la isku daro wajigaas wuxuu ku dhamaaday 10,000 oo qoys in la quudiyay lacagtii ganacsatada. sida uu noo sheegay ama aan ognahay lacagtaas waxa ay ka timid ganacsatada gobolka Banaadir iyo culimada waxaan rabaa inaan ku celiyo iyo culimada maadaama aanan ku xusin muxuu ahay barnaamijyadii hore culimadu qayb xoog leh ka qaateen dadka loo mahad celinayna ku jiraan. markee waxaan bixinay 10,000 oo qoys oo qoyskiiba uu qaadanayo haaf bura, haaf bariis, haaf sokor iyo caag saliid ah. marka labaad ganacsatada Soomaaliyeed oo cid walba ka kooban oo ilaa gobolka Banaadir ilaa Soomaaliya dhan ka kooban deeqda ay ku soo deeqeen dadkaas masaakiinta ugu soo deeqeen aan uga mahad celinaynaa. annagana ay noo soo wakiisheen. waxaan leeyahay annaga si Ilaahay dartiisa inaan ku gaarsiino oo arintaasna gundhig u tahay rugta ganacsiga Soomaaliya. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goobjoog ka ahaa goobta lagu bixinayo deeqda ayaa u mahad celiyay guddiga gurmadka ganacsatada magaalada Beledweyne iyo walaalihii kale Soomaaliyeed ee lacagahan soo dhiibay. waxaa la yiraahdaa xildhibaan Faadimo Qamar xildhibaanada federaalka ah. waxaanu leenahay maanta halkaan hawshii badneed oo nimankan wadeenay muxuu ahaay howl wadeennada ah oo annagana aan kor joogtaynaynay wax badan baa ka soo gabagaboobay. dadkan runtii way dageen sidii hore ma ahan. 10,000 waa la bixiyay. 10,000 oo qofood baa la bixiyay maasha Allah. mahad Ilaah baa iska leh. waxaan u mahad celinaynaa runtii ganacsatada Soomaaliyeed runtii u istaagtay inay ummadooda kaalmeeyaan. ilaa maalintii 7 filaya ayaan taaganahay oraxda. runtii waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada dhigooda ay soo wakiisheen u dhashay gobolkan oo sida habsamida leh oo amaanada leh oo hufnaanta leh oo runtii oo howlkarnimada leh muujiyay naxariis iyo maxaa la dabacsanaan inay dadkooda u adeegaan. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah idinka siiyo. waxaa halkan maanta lagu bixiyay oo aan ugu mahad celinayaa deeq ay soo dhiibeen walaalihii muxsiniinta ahaa ee ganacsatada ahaa guud ahaan rugta ganacsiga gaar ahaan odayaasha kambaniyalka waaweyn sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo ganacsatada rugta ganacsiga ku midaysan waxay soo dhiibeen oo qarashaha raashin lagu gaday ayaan maalintii saddexaad aan joognaa oo aan gadnay. maalin 3,000 la sheegay, maalin 2,000, maalintana waxaa la dhiibooyaa 5,000. meeshaas waxaa weeye waa 10,000. Maxamed Cusmaan Makaraan, Universal TV, Beledweyne.